duqa degmada Gaalkacyo Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo wehelinayo ku-xigeenkiisa Maxamed Cabdi Cilmi iyo qaar ka mid ah hooyaasha dawladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa xadhiga ka jaray suuq cusub oo dawladda hoose ka hirgelisay suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo. suuqan cusub oo ku yaala agaarka suuqa ariga ayaa dawladda hoose ugu tala gashay in dadkii hore looga baneeyay goobihii la burburinayay ay degaan isla markaana si bilaash ah ku degaan. qaar ka mid ah ganacsatada suuqan sida bilaash ah ku degi doona ayaa ka mahad celiyay dawladda hoosena waxa ay ku amaaneen doorkeeda ku aadan in dadka shacabka loo sameeyo dib u dejin. soo dhaweeyna maayirka qayr badan la siyaasada kala suuqa wanaagsan oo uu noo dhisay aad iyo aad baan u soo dhaweeynaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaaha ku maasan isku kaya keen masinka sharafta leh anagoo ah dad islaam ah oo nabad qaba waan bogaadinaynaa insha Allah taala madaxda maayirka ciidanka waa salaamintihiin boqortooyada malafarta ku salaamintihiin waa mahadsantihiin qorax itla ah baxaraash ku hayay meel qaboob oo neexawleh bay keenteen way ku mahadinaya ilaahay weyna waaxidati tii raagtay oo nimco ku raagtay Allah idinka yeelo caafimaad badan oo baraka leh Allah idin siiyo. waa u jeedaa sida laga dhigo waana waxa wadooyinkii waana la furin magaaladii waana la aayay waa shaqaysanaa alxamdulillah. dhankiisa duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa asna sheegay in shaqadan ay sii wadi doonaan iyadoo ay barbar socoto in dadka laga wareejiyo goobaha loo sameyn doono dib u dejin. runtii waxaan rabaa si gaar ah ugu mahad celiyo dhammaan xildhibaanadii shaqadan waday iyo agaasimayaashii runtii nagu matalayay aragtideennii iyo shaqadii horumarineed aan ka rabnay degmadan inay si firfircooni leh daacadnimo leh ay runtii nagu matalaan shaqadii aan u idmanay mar kale waxaa aad iyo aad uga mahadsantihiin. ganacsatada suuqa waxaa leeyahay aad baan kaga mahad celinaynaa wadooyinkii aqbasheen inaad banaysaan kadibna aad naga aqbashaan suuqa idin diyaarina inaad si nadiif u degtaan. waxaan ilaahay kaga baryaynaa ilaahay inuu idin barakeeyo suuqa insha Allah tacaala waa ganacsigiina ilaahay idin barakeeyo. dawladdiina hoose marka ay ka shaqaynayso horumarinta jidadka ay banaynaysay ujeedkeedu ma ahayn in idinka la idin raro ee aan idinka fikirin nooceeda in la idin dheebo in la idin la qaybsado waxa aad dareemaysaan baa naga goonayd insha Allah tacaala. ilaahayna waa nagu guuleeyay wajigii koowaad inta kale dhiman ee u baahan in dib u dejin loo sameeyana insha Allah tacaala dadaalkeeda waa ku jirnaa. suuqa maanta iftaax ee xarag jarnay ee dawladda hoose soo dayactirtay diyaariyeen runtii diyaarka dheer loo soo maray ee maanta halkan dib u degeen 49 qofood oo ka mid ah dadkii ka soo barakacay wadooyinka la banaynay. aad iyo aad baa u faraxsanahay mar kale waxaa leeyahay ilaahay wuxuuna idin barakeeyo annagana waxaan ku garab taaganahay insha Allah tacaala wax walba oo suurtagal ah in aan qaban karayno insha Allah tacaala ay ugu horeyso maadaama kharash idin galay aad guurteen xawaal adag ku jirtaan si gaar ah runtii inaan ugu gurmino suuqan. Abdullahi CD Soyal TV Gaalkacyo.